بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa nabad qab iyo deganaansho saaka waxaan isugu yeedhnay colaadda ka soo cusboonaatay bariga ceelaf weyn degmada Darweyne ay shalay ugu dambeysay dadka faraha badan ku dhintay aanay ahayn inkastoo nafgu aysan la celin karin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dilayaa ay dhimanayaan mar walba haddana aanay ahayn inay waqtigan maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhintaan intaasoo nafood anoo ku hadlaya afka xisbiga u cid xisbiga cadaaladda iyo daryeelka afka guddoomiyaha xisbiga Faysal Cali Xuseen iyo dhammaan afka taageerayaasha xisbiga waxaan leeyahay waan ku baaqaynaa baaq nabadeed colaadda ha la joojiyo nabad ha la isugu yimaado nabad ha lagu wada joogo nabad sidii loogu daaqi jiray ka ab loogu wada noolaa lagu wada noolaado cidda isdilaysa ma aha laba qabiil ma aha laba reer waa hal jifo waa hal family oo ka soo wada baxa guri oo ka soo wada jeeda guri oo ku wada dhasho guri oo ku wada guursada guri oo ku wada barbaara guri waxaan leeyahay dadka waxgaradka ah dhammaan reer Soomaaliland dadka waxgaradka ah ee ka soo jeeda labada family maanta waxaynu u baahanahay harumar waxaynu u baahanahay wax qabsi waxaynu u baahanahay jamhuuriyadda Soomaaliland inay korto uma baahnin inay dib ugu noqono taariikhdii aan quruxda badnayn ee soo martay Soomaaliland waxaan leeyahay qof dhintay ma soo noolaado waxa loo taliyaa mid nool maalin walba inta markaa nool ayaa tala u baahan waxaynu u baahannahay tala caafimaad qabta waxaynu u baahannahay waxgarad in la xulo waxgarad in ummadda laga xulo waxaynu u baahannahay inagoo og waxa la isku dilayaa inaanay ahayn hebel baa shalay dhintay hebelaha ka daba dhinto wax dhaafsiisan adeerkay baa dhintay ka kalena waynu dhintaa wax intaa dhaafsiisan aanay ahayn oo wax inagu kala maqan oo intaa ka badan aanay jirin oo reer Soomaaliland oo dhammi og yihiin waxaan leeyahay aabbaha hadduu dhintay walaalkaa hadduu dhintay adeerkaa hadduu dhintay ma soo noqonayo in kaloo ka badan baa dhiman doonta haddii aanad qof kasta oo reer Soomaaliland qof kasta oo colaadda ku lug lahow haddaanad sida saxa u fakerin si kasta ugu lug lahow waxaanu baaq u diraynaa colaadda in la joojiyo waxaanu baaq labaad u diraynaa ummadda reer Soomaaliland hadday tahay xukuumadda hadday tahay golayaasha sharciga hadday tahay ummadda waxgaradkeeda iyo cuqaasheeda waxaanu leenahay arrintaas si dhaba ha loo xalliyo si dhaba ha loo galo waxaan ku baaqaynaa in si dhaba loo galo oo ka duwan siyaabihii hore loo galay ma saarin tuhunkii la kala qabay laakiin si ka duwan bay maanta u baahan tahay waxay u baahan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu go'aan adag uu ka qaataa way u baahan tahay waxay u baahan tahay meelo badan oo Soomaaliland colaadda oo ka badan ku kala dhinteen oo la dejiyay baa jira waxay u baahan tahay in sidii loo dejiyay meelaha kale in loo dejiyo tanna aad iyo aad baan idin salaamayaa baaqaanu diraynaa maanta intaas ku ekaa aad baa u mahadsantihiin